korintuska koowaad cutubka afraad hana lagu tiriyo inaannu nahay mididiyada masiix iyo wakiilada waxyaalaha qarsoonayla haddaba waxaa laga doonayaa wakiilada in aamin laga helo laakiin waa ila yar tahay inaad idinku xukuntaan ama in dad kale xukumo xataa aniga iyo qudhaydu isma xukunno waayo waxba iskuma ogi laakiinse ma aha taas aawadeed in xaq layga dhigay waayo waa rabbiga kani xukuma taa aawadeed wakhtiga hortiisa waxba ha xukumina ilaa rabbigu imanayo kan waxyaalaha qarsoon ee gudcurka iftiimin doona oo muujin doona tashiyada qalbiga oo markaas nin kastaaba wuxuu ammaantiisa ka heli doonaa ilaah haddaba walaalayaalow waxyaalahan ayaan aawadeen u soo qaaday qudhayda iyo abolosba inaad xaggayga ka barataan inaydnaan ka gudbin waxyaalaha qoran oo aan midkiinna midka kale u faanin waayo yaa kaa soocay maxaad haysataa oo aanad helin laakiin haddaad heshay bal maxaad u faanaysaa sidii adigoo aan helin horaad u dheregteen horaad hodan u noqoteen la'aantayo sida boqorro ayaad wax u xukunteen waan jeclaan lahaa inaad wax xukuntaan inaannu annaguna wax idinla xukunno waayo waxaan u malaynayaa in ilaah na soo saaray annagoo rasuulladii ugu dambeeyey sida kuwa dhimashada lagu xukumay oo kale maxaa yeelay wax la daawado ayaa nalooga dhigay dunida iyo malaa'igaha iyo dadkaba annagu waxaannu nahay masiixa aawadiis doqonno idinkuse caqli baad ku leedihiin xagga masiixa annagu waa xoog darannahay idinkuse waad xoog badan tihiin idinku ammaan baad leedihiin annaguse waa maamuus laanahay tan iyo saacaddan waan gaajaysannahay waanan raadsannahay waanan arradsannahay waanala garaacay oo meel aan ku hoyannana ma lihin waana hawshoonnaa annagoo gacmahayaga ku shaqayna markii nala caayana waan ducaynaa markii nala silciyana waan dulqaadannaa markii nala xantana si qabow ayaannu u hadallaa waxaannu noqonnay uskaga dunida iyo waxa ugu wasaqsan wax kasta tan iyo haatan anigu waxyaalahaas u qori maayo inaan idin ceebeeyo laakiin inaan idin waaniyo sida carruurtayda aan jecelahay oo kale inkastoo aad leedihiin 10,000 oo masiix idinku rabbeeyey aabbayaal badan ma lihidin waayo ciise masiix ayaan idinku dhalay xagga injiilka haddaba waxaan idinka bareeyaa inaad igu dayataan taas aawadeed waxaan idiin soo diray timotiyas oo xagga rabbiga ah wiilkaygaan jecelahay oo aaminkaa wuu idin xasuusin doonaa socodkayga ee ah xagga masiixa sidaan meel kasta wax ugu baro kiniisad kasta qaar baa kibray sidii anigoo aan idiin imaanaynin laakiin dhowaan baan idiin iman doonaa haddii rabbigu yidhaahdo oo markaasaan garan doonaa kuwa kibray xooggooda ee ma aha hadalkooda waayo boqortooyada ilaah hadal ma aha ee waa xoog maxaad doonaysaan ma inaan ul idinla imaaddo mise jacayl iyo ruux qabow